guddiga qaran ee diyaargarowga iyo kahortagga xanuunka coronavirus ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen maanta waxay guddigaasi ku soo saareen go'aamo hor leh war-saxaafadeedkan oo nuqul ka midii soo gaadhay xafiiska warqabadka ee telefishinka Universal ayaa u dhignaa sidan guddiga qaran ee diyaargarowga iyo kahortagga xanuunka COVID-19 oo uu shir gudoominayay madaxweyne ku-xigeenka Somaliland ahna gudoomiyaha guddigaasi Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sayrici shiray maanta iskugu yimaadeen waxay kaga hadleen khatarta xanuunka COVID-19 oo kordhaysa iyadoo 3 qof oo cusub laga helay xanuunkaasi gabagabadii shirkaasi waxay guddigu isla garteen in loo baahan yahay in la qaado tallaabooyin wax ku ool ah oo lagu xakamaynayo faafidda xanuunka COVID-19 ee bulshada dhexdeeda waxaanay soo saareen qodobadan hoos ku xusan guddigu ayaa lagu yiri war-saxaafadeedkaasi guddigu markay daristay qodobka 6 ee qoraalkii tala soo jeedinta ahaa ee culimada Somaliland ay soo saareen 4 bishan 2020 kuna aadanaa ka hortagga cudurka COVID-19 una dhignaa sidan in shareecadeena suuban ay u banaysay ummadda in jimcaha iyo jameecada la maqnaan karo haddii la helo in la xaqiijiyo duruufo adag sida xanuunada faafa iyo wixii la mid ah iyo baaqyada bahda caafimaadka ee Somaliland ee ku aadanaa xanuunka COVID-19 waxayna guddigu bulshada faraysaa inay masaajidada ka maqnaadaan muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 15 bishan ayna ku tukadaan guryahooda si looga baaqsado faafidda xanuunka COVID-19 muwaadiniinta masaajidadana waxa la farayaa inay eedaanka salaada ku daraan guryihiina ku tukada sallu fi rihaalikum waxaa muddo 4 toddobaad ah oo ka bilaabmaysa 18 Abriil 2020 lagu daray waqtiga ay sii xidhnaan doonaan dhammaan goobihii waxbarashada dalku 3 waxaa xidhnaan doona xadka dhulka ay Somaliland la leedahay dalalka Itoobiya, Djibouti, Soomaaliya inta khatarta xanuunka COVID-19 ay iska bedelayso waxaana ka soo gudbi kara waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, dawooyinka, agabyada caafimaadka iyo badeecadaha ganacsi ee kala duwan 4 dhammaan marsooyinka Somaliland way xidhan yihiin marka laga reebo dekada Berbera oo ay ka soo degi karaan waxyaabaha daruuriga ah sida raashinka, shidaalka, dawooyinka, agabyada caafimaadka iyo badeecadaha ganacsi ee kala duwan 5 waxa la farayaa mulkiilayaasha iyo wadayaasha basaska dadweynuhu adeegsadaan ee ka shaqeeya magaalooyinka waaweyn dhexdooda inay dhimaan kala badh 50% rakaabkii ay qaadi jireen laga bilaabo 15 bishan inta la xaqiijinayo in xanuunka COVID-19 uu dalka ka baxay qaabka basaska ay dadku u qaadayaan waxay noqonaysaa sidan baska 30 qof qaada waxa loo ogol yahay inuu qaado 15 qof baska 15 qof qaada kuraasi ahaan waxa loo ogol yahay inuu qaado 7 qof 6 laga bilaabo 15 Abriil gaadiidka yaryar ee magaalooyinka dhexdooda ka shaqeeya waxa loo ogol yahay inay qaadi karaan rakaab loo qoondeeyay oo ah sidan hoos ku xusan gaadiidka raaxada ee fitista 1 qof oo rakaab ah gaariga borobogoska 2 qof oo rakaab ah bajaajta 1 qof oo rakaab ah 7 laga bilaabo 15 bishan Abriil dhammaan basaska qaada rakaabka ee u kala safra gobolada dalka waxa la farayaa in dhammaan kala badh 50% rakaabka ay qaadi jireen inta la xaqiijinayo in xanuunka COVID-19 dalka ka baxay qaabka basaska ay dadku u qaadayaan waxay noqonaysaa sidan baska 60 qof qaada waxa loo ogol yahay inuu qaado 30 qof baska 30 qof qaada waxa loo ogol yahay inuu qaado 15 qof baska 15 qof qaadana waxa loo ogol yahay inuu qaado 7 qof 8 isbedelka qiimaha lagu raacayo gaadiidka ee iman kara waxa isla goynaya maamulada gobolada iyo degmooyinka iyo iskaashatooyinka iyo mulkiilayaasha gaadiidka dadweynaha si dhaqso ah 9 dhammaan dadka ajaanibka ee aan lahayn sharci ay dalka ku joogaan waxa lagu wargelinayaa in ay dalka ka baxaan muddo 5 cisho gudahooda oo ka bilaabmaysa 15 bishan Abriil 10 waxa lagu wargelinayaa bulshada reer Somaliland in cidii u hogaansami weyda dhammaan
go'aamada ka soo baxay guddiga heer qaran ee u diyaar garowga ka hortagga xanuunka COVID-19 inay mutaysan doonto ganaax iyo xadhig ayaa lagu soo gabagabeeyay war-saxaafadeedkaasi ay soo saareen guddiga qaran ee ka hortagga iyo u diyaar garowga xanuunka coronavirus.